gudoomiyaha xisbiga qaran ee u cidin Injineer Faysal Cali Waraabe oo kamid ah siyaasiyiinta ruugcadaaga ah ee qaranka Soomaaliland oo booqasho ku jooga gobolka Awdal ayaa gaar ahaan jooga magaalada Boorama. Siyaasi Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu maanta booqasho ku tagay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu jaamacadda Camuud ku soo dhaweeyay gudoonka sare ee jaamacadda Camuud Professor Saleyman Ahmed Guuleed ahna madaxweynaha jaamacadda Camuud waxana uu ku nastay gudoomiyaha xisbiga u cid xafiiska gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleyman Ahmed Guuleed si kadib waxa uu kulan ballaaran uu ka dhacay hoolka qalin jabinta jaamacadda Camuud oo arday tiro badan uu halkaas kula qaatay soo dhaweyn iyo sacab halkaasi lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga ucid oo uu horkacayo gudoomiyaha jaamacadda Camuud ahna madaxweynaha jaamacadda Camuud Professor Saleyman Ahmed Guuleed waxa halkaasi ku soo dhaweeyay ardayda tirada badan ee jaamacadda dhigata ugu horeyntii waxa hal kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleyman Ahmed Guuleed oo ka sheekeeyay marxaladihii kala duwan ee ay jaamacaddu soo martay iyo aqoonta guud ee uu u leeyahay Injineer Faysal Cali Waraabe hadaladiisina waxa kamid ahaa halka waxaan ku soo dhaweeynaa saaxiibka Camuudeed saaxiibka Soomaaliland oo dhan Injineer Faysal Cali Waraabe oo ahaa ninka meel walba laga taageera farriiska hargeysa markaan tagnay magaalooyinka waaweyn runtiina garab galay loo baraarujin jiray qalinjabinaha kaalmaanaan digi jirin isagoo wuxuu haystaa kaal foolguud ah intuu nool yahay wuxuu ka yahay daacad markuu isagu mushkilad sheegayo mushkiladda si daacad u ka yahay weliba kuwa dhallinyarada waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeen orso inuu ku dhiirrado marmarka gaarkood runtii inuu Soomaaliland sidaa markuu tilmaamo cidda daalibka iyo madluumka uu si farta ugu fiiqo ilaa way isdulmaynaa innaga lafteennibaa isdulmayno waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga u cid Injineer Faysal Cali Waraabe oo sheegay marxaladaha kala duwan ee uu dalku marayo roolkii doorka ka ciyaareen iyo roolka ay lahaan qorobta halkaan soo cabay kiina quwad badnaa oo ilaga waaye baltana ku dayno inaan barbardaaqno barbarnimada Injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu hoosta ka xariiqay midowga Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo wada hadalladii Turkiga waxana uu sheegay sida tan waa shirkii Turkiga si fiican oo soo hadalay oo waxay tababarada ay keensadaan askartooda lagu tababaray Uganda waxaan goriyacaw keena goriyacaw lagu tababaray Faysal Cali Waraabe waxa uu halkaasi ku sheegay kororsigii dhawaan ka dhacay dalka Soomaaliland Faysal oo arrimahaas iyo arrimo badan ka hadlayna waxa uu yiri wixii Maxamed Siiraay wax ku wareejinaya dad midaysan iyo dad midaysan xaji cabdi oo waxba baran baa dadku aqli qadan waxaan wada guurtay wax ma aqrinaan waxna ma aqrinaan si wax u siitaysan saaxir ku samaysan waxay guriga madaxweynaha joogo oo tan wax nala meel soo deegan soo celin qorsadeen يا بس هاي يقول بس مالك وتعالى كلام ما يندم مالك وتعالى وأنا وكيف معقول Injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu halkaasi ku soo qaaday arrimaha taariibka oo baryahan si xawliya u badanaya Faysal oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayna waxa uu yiri shaamiciintii reer magaalkii way dhaafteen intii miyiga timay way ka shaqeeyeen lix bilood shaqeysay magaalada guri ilaa meel jidday tagtay أصحاب تملي بالحلول ملي ريفرندم مال قاعدين ريفرندم بقى كاسل وصعود يا ماما إلهي لو جعلت كلاه تينك حين كلامي جرتين لكن قولوا يمكن مركوري إن محمد إن بوقيني ورينا نقولي سكوت هلا أو بيش الدحاء أي هذا قال كل روحاني يعني يدوب يحجز تمشي نواه intuu kulankani socday ayaa waxa halkaasi su'aalo lagu weydiiyay siyaasi Faysal Cali Waraabe oo ka jawaabayay su'aalihiina waxa uu dhaceen sida tan kastaba ha ahaatee maatinkan Injineer Faysal Cali Waraabe ee gudoomiyaha xisbiga ku ka yahay sidii uu wada tashi gaar ah u sameyn lahaa dhalinta jaamacadda Camuud wax ka barata taasi oo horumar iyo wada sheekaysi dheer kala galay waa Axmed Ciirtire telefishinka Rayo gudaha jaamacadda